class waxaan ku jiray psychology class aan qaadanaya hadda ka hor professorka oo noo waxaynayay iyo su-aalna weydiiyey wuxuu yidhaahday adiga iyo waxaa jiro adiga xaaskaada iyo labadaada cunug ilaah ma labadaada cunug dhaa adiga xaaskaada iyo labadaada cunug yaa diyaarad soo wada raadeen diyaaraddii hawada markay marayso matoorkii labada matoor oo diyaaradda oo garbaheeda ku jiraan mid ka mid baa dami oo hallaabay dhulna ma u dhowo meeshaan aerobortna uma dhowo meesha la kor socdo waa bad waayo maadaama bad la kor socdo diyaaraddii waxay dhaheen maadaama saas dhacday diyaaraddii badda inay ku degtay noqotay emergency waxay dhaheen noo imaada intaan badda ku jirna baddaan ku degaynaa baddii diyaaradda dhexgal diyaaradda intay badda dhexgalin waxyaalihii life ishak muxuu life vestigii iyo waxyaalihii kaleeto yaa lahay ma aragtay isheeg la xirxirinay ay degaysaa diyaaradda marka wuxuu dhahay adiga iyo labadaada cunug oo adduunka ugu jeceshahay iyo xaaskaada ama xaaskii u dhahaya adiga iyo ninkaada iyo labadaada cunug kee badbaadin lahayd kee siin lahayd hal life vest hadduu kugu jiro hal life vest ku jiro no hal life vest hal oxygena jiro life vest waaysa life vest waxaa waaye kan boorsada la xirto waaye oo ma aragtay oo lagu dabaalan karo waaye marka life vest waaba jiraaye kee adiga qaadan lahayd macnihii yaa siin lahayd oxygenka oo cabaar dadka haynaayo oxygenkaas yaa siin lahayd hal oxygena jiro meesha la qaadanayo I think qofka oo maxaa la condition health conditions ka qabo health condition qaba health conditionka maxaa waaye health condition qofka xanuunsana ka wadaamiya oo health condition okay so ilmahayga ada cunugaada ma siin lahayd mise waxaa siin lahayd ninkaada ama waxaa siin lahayd labadaada cunug midkood maa siin lahayd mise ninkaada siin lahayd mise adaa qaadan lahayd I think qofka health condition I want to say haddaa qofka xanuunsan haddaa siisid cunug yariiska xanuunsan okay hay ka jawaab su-aasha adiga intaanan kaaga jawaabin sida uga jawaabaan kaaga jawaabaya isla markii so flight and flight and fright marka adiga xanuunsan adaa xanuunsan adaa qaadanaysa anaga kale ma dhimanaynaa markaas suk أنا هرت قولي هريا كو المهية هريا المهية who has health conditions يا أزمة خوا يا دايبريك إلهي ميكسو في بيها أنت ديارة كلا كإيمانيس أو ما عرفتي مجلسي أو ضدك عاونيس أنت إيمانيسو أما بتبادلنيس ضدك لا إيمانيسو مدة قادنيسا 6 hours على جيابة إني قادت 6 hours بدأ على وجهه هل كله في أكسجين هل قف بس أكو بدباداي so here's one thing هل وح for sure 100% أنا وهو محايم كذا any support or life support or جرو ماركتي وهدي حل أسياي 100% أما قاضل هن هذا ما قاضل هن هل بيم إسي هايو يا قاضل لها either my first thing on كفكرة حواي وحوورة كفكرة كان وهراء on قف كو وهراء كفكرة حواي عنق وير I think the عنق وير would be the that needs the most and and then if عنقيga is maybe هديوس if I can see that he's okay and maybe the father أضوغا health condition is hostile maybe أضوغا if Aloga doesn't have a health condition, then it's just gonna go. It's just gonna. Aniga, it would be for me and rotate between the child and the father. Even if there's extra marakti, lamadan kala siha. And I would not take it. You wouldn't take it? I would not take it. So jawaabta dad badankooda waxay leeyihiin ana ninkaygaan siin lahaa ama cunugaan siin lahaa laakiin jawaabta meesha la raba waxay ahayd qofkii dabaal yaqaanaa la siinayaa qof dabaal yaqaana maxaa yeelay cunugaadaa siisay cunugii 2 jir ama 1 jir waaye oxygenka asagaa siisay adiga waxaa leedahay okay aniga dhib malaan waa iska dhimanaynaa cunugii oxygenka si loo isticmaalo ma yaqaana waa dhintay aabihiyaa siisay aabihii dabaal ma yaqaana adaa dabaal taqaanid so qofka waxaa la siinayaa qofka jaaniska ugu sarreeya leh inuu badbaado
aa la siiyo dhahay Oh my God, that really wallahi that makes sense. yeah qofka uu chance kale inuu badbaadayo marka la fiiriyo intaan Because aabaha hooyada labada cunug keebaa chance ugu fiican leh inuu badbaado qofkaas la siiyo